ciidan ka tirsan kuwa gaarka ee Haramcad ayaa nagu soo galay xarunta raadiyaha xilli hore aroora oo aan ku mashquulsanaan soo saarista warka subax aniga asxaab ka mid ah raadiyaha markii ay noo soo galeen kadib waxaa dhacday in qolka warqabadkan ku jiray toos u soo abaaraan markii ay soo galeen kadibna waxaan ugu amray inaan banaanka soo baxo banaanka markaa soo baxay idaacadda waxaan ku joognay habeenkaas ilaa 5 qofood aniga iyo yar website-ka qoro iyo 2 waardiyaha iyo farsamayaqaanka raadiyaha daaray waxaa dhacday markii aan nala soo saaray banaanka nala soo saareen barxada dhexe raadiyaha qaybta dhexena la geeyay kadibna waxaan lagu amray inaan derbiga madax saarno iyo inaan sii jeesano amara kala duwan ciidanka bixinayeen waxaan sameynay waa sii jeesanay kadibna markii dambe sargaal iyo ciidankii dhexdooda waxayna yiraahdeen fariista caadi u fariista caadi markaa fadhiisana kadib waxaa dhacday agabkii raadiyaha idaacadda toos ula soo baxayeen warqabadkay ka bilaabeen kombiyuutaradii iyo mp3gii iyo wixii lagu shaqeynayay soo qaateen qaybta muuqaalada digital online-ka u gudbeen waxay soo qaateen kaamirooyinkii kombiyuutarada lagu shaqeynayay hadiskiyaashii meemoriyaashii keedka ahaa ee la isticmaalayay waxay kaloo la soo baxeen u sii gudbeen qaybaha xafiisyada raadiyaha sida xafiiska suuqgeynta qolka guud ee agaasimaha ku shaqeeyay iyo qaybaha kale ee raadiyaha u gudbeen kadibna waxay soo qaateen kombiyuutaro iyo agabyo laabtoobyo u badan oo meesha yaalay waxaa dhacday kadib bannaankay nagu yimaadeen alaabtii anagoo u jeednay raranayeen waxay sameeyeen marka la hadal ismaagnay yar kaameramaan u Haramcad oo sida cali yiraahdo oo la socdo ciidanka oo qori watay ayaa markaas igu soo leexday anoo meesha taagan markuu igu soo leexday kadib waxaa dhacday in qoray uu waabiyo waa ka sikaday 3 jeer wax ugu dhuftay mar intii ugu dhuftay mar dhinacan ugu dhuftay mar kale intii ugu celiyay askari kale oo meesha taagnaay oo meesha taagnaa naga celiyay si gaar aniga waxaa dhacday intaad nalaguma harin intaas marka dhacday kadib waxay sameeyeen ciidankii Haramcad saraakiisha hogaaminaysay qaybtan kale oo nagu dhegan oo raadiyaha oo ay deganaayeen xubnihii ka soo jeeday muddo kororsiga baarlamaanka 12 abriil uu sameeyay balse isaga baxay xilliga habeenkii ah maadaama anaga raadiyan ka shaqeyno iyagana ay ka shaqeeyaan ama ay yihiin askar aan isku gudbin ama aan isdhex gelin xilliga baxayeen oo kale war kama haynin meelahay aadeen xogna ma aan hayn waxaan ka war helnay subaxii hore ciidanka soo baxay ciidankaana soo galay anaga albaabkeena qaybteena noo xirneed waxaa dhacday shamiitooyin ilaa 25 kiisha oo meeshaan ugu tageen oo qaybta albaabka xigta in lagu amray inaan qaadno 12 kiisha shamiito ah waxaan saarnay gaari ambulance boolice oo ay wateen ciidanka gaarka Haramcad saraakiishii la socotaan ugu amreen inaan saarno aniga iyo 2 kale oo kamid ah shaqaalaha raadiyaha waan saarnay shamiitadii markaan raseynay kadib 13 kiisha soo hartay waxaan saarnay gaari cadibilaah maadaama gaariga uu buuxsamay oo qaadi karin tan inta ka badan gaariga cadibilihii taliyihii iyo saraakiishii iyo askartii dhamaan waxa marba ku qasbaneen ciidan shaqaalaheena mustaqbal in wixiina la faraan sameeyno 13 kiishan saarnay gaariga waxaan u sheegay taliye inaan xanuunsanahay in toddobaadkaas dhiig aan shubay in habeenkaas aan suxuuran in maalin ramadaan ay tahay in jigul ii geystay waxaa lagu amray inaan mar walba qaado qasab ay ugu tahay inaan qaado agabkaas intaan nalaguma harin kadib waxaan u gudubnay qaybtan kale oo ay degnaayeen dhinacyadii ka soo horjeeday muddo kororsiga baarlamaanka ee sameeyay waxaan soo qaadnay mukayfiyada darbiyada ku dhagan agabyo kale geedahan liiraas difaacida amisoomka biraha iyo jawaanada ka samaysan oo cusub oo meesha yaalaan qaadnay baabuurtii baan ku rarnay ilaa markii dambe nagu amreen wax dhaqdhaqaaq aan sameey karin saraakiisha isku keen dul badashay taliyihii ciidanka wataan u sheegay waxaan dhahay inuu dhib lii geystay askarigaas ii geystay markaas wuxuu igu yiri inuu noo kala qaat markaas waxaan kala qaadaa ana dhib lii geystay ma ana dhib geystay markaas wuxuu yiri inuu noo kala qaat kadibna way naga dhaqaaqeen ciidanana lagu dul reebay kabacdi ciidankii saraakiil kala timid waxaa qayb ka taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir Farxan Qaarole iyo saraakiil kale oo goobta timid mar walba waxyaabaha ay weydiinayeen waxaa ka mid ahaa in xarunta kaamirooyinka ku dhagan kaamirooyinka meelaha ku dhagan yihiin sheeg waxaan u sheegay in xarunta cusub tahay oo aan ka soo guurnay qaybta waa bari kaamirooyinkana aysan ku dhagnin ilaa hadda xaruntan cusub waxaa kaloo la amray gaari meesha yaal in furiis aan sheego aniga waxaan gaariga ma wato furiis ma isticmaalo mana ogi furiis meelo yaalo mararka saas dhaho kale waa aad li handaday waxa intaas isii dheeraad inta hoosh aan wadnay oo nala qasbayay nala adoonsanayay oo shaqada lagu haystay in telefoonkayga way qaateen ciidanka Haramcad waalidkayga ogaaday baraha bulshada ka ogaaday xogtaasi in markii ay soo waceen telefoonkayga
lagu wargeliyey inaad dhintay meedkayga inay soo doontaan dabcan waa dhacdo iga sii xanuun badan wixii dhiba lii geystay iyo waxyaabihii kale aan la sii kulmay taleefon kale aan wato jeebka igu jiray ma qaban karin oo awood uma lahayn inaan qabto maadaama taleefonka aan ka baqaya laga qaato marka kadib fursad yaraan helay ehelkayga aan fariin u diray waxaan u sheegay in ciidankii iyo saraakiisha haramcadeenna dul joogto ilaa haatan ana caafimaad qabo marka laga tago jugta lii geystay waxyaabaha nalagu qaaday waa ku wargeliyey waalidkii waan u sheegay markaas xoogaa waalidkii xasilay jawaabna aan bixi karin wixii wicitaana iyo wixii dambena aan dib iskala socon doono marka dhibaatadaas ugu weyneed waxa lii geystay dabcan xusuus gaaray u reebtay markaan ka hadla xaqiiqada maadaama aan isku sheegay inaan weri ahay liigu tixgeli waaye dhibaatada lii geystay wax lii qaba waaye saraakiisha hogaaminaysa igu wargeliyeen in macnaha noog aan kala qaadano anaguna waxba aan u geysan dhib aan u geysan halkii la rabay in ugu yaraan liga xalmariyo cid dowladda ka tirsan oo aan dib iisoo dabagelin oo marka laga hadlo wasaaradda warfaafinta hadday tahay hay-adaha amniga dowladda ay yihiin cid ilaa hadda isoo daba kacday oo war see wax ku gaareenaysa wax ku yihiin ma jirto laakiin waxaan u mahad celinayaa dhammaan asxaabta warbaahinta aan ka howlgalno sidoo kale waxaan u mahad celinayaa hay-adaha gaarka suxufiyiinta difaaca sida SGS oo kale CBJ oo kale warbaahinta caalamiga oo inta badan xiriir la soo sameynaysay maamulka raadiyan ka shaqeeyana xiriir la soo sameynaya oo ah in xaqiiqda ogaadaan dabcan wixii dhacay kulli taariikhda qori doonto dhibaatadaas lii geystana weli waxaan ahay aniga cadaalad suge oo waxaan u baahanahay inaan cadaalad helo haddii muwaadinimada soomaaliyeed ligu dhibaateeyey dariiska dowladda ama dharka dowladda ama awoodda dowladdana kolley oon maalin walba dad la dhibaateeya